jenaraal maxamed xasan cabdulaahi jirif taliyihii hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa munaasabadda xusa aasaaska ciidamada booliska jamhuuriyadda somalilan oo ku beegan maalinta beriya waxa uu hambali u diray guud ahaanba ciidamada booliska jamhuuriyadda somalilan kuwaasoo uu ku ammaanay sida ay hadh iyo habeenba ugu taagan yihiin amniga qaranka oo ay ugu seexdaan shacabka jamhuuriyadda somalilan. berito haddii la idhaahdo khamiista waa aasaaskii ciidanka booliska somalilan. marka waxaan hambali oo dirayaa saraakiisha saraakiil xigeenta dumarka xaasaskooda ilaahay uga barya in ilaahay nolol wanaagsan siiyo nabadgelyo siiyo kuwii wadankooda hawsha oo qabteen kusii wadaan ay noqdaan aan hambaliyanayaa. intaa waxaan ku darayaa waxaan hambaliyanayaa oo kale taliyaha maxamed aadan saqali. taliyuhu maxamed aadan saqali waa inankaygii nin diinta aad u yaqaan diinta ka dambeeya aada u degan wax xukumi karaa ayuu yahay. insha allah waxaan ka baryaa in ilaahay saa uu sii wado. dhinaca kale jenaraal maxamed xasan cabdulaahi jirif oo ahaa aasaasihii ciidan nabadgelyo oo markii ugu horreysay laga hirgeliyay caasimadda hargeysa oo shaqaynayay wakhtiyadii ilaa 1991 ilaa 1993 kana koobnaa ilaa 300 askari kuwaasoo markii dambe ay ka unkameen ciidamadii booliska jamhuuriyadda somalilan ayaa ka sheekeeyey taariikhda wakhtigii ay aasaaseen isagoo markaasi ahaa taliyihii ciidankii nabadgelyada ee caasimadda hargeysa laga bilaabay. waxaana uu sheegay in wakhtigaasi ay gacan weyn ka geysteen sidii loo aasaasi lahaa ciidankaasi nabadgelyada odayaashii madax dhaqameedka iyo waxgaradka jamhuuriyadda somalilan kuwaasoo isku tashaday siday amniga qaranka somalilan oo markaasi la unkayay ay meel uga soo wada jeedsan lahaayeen loona heli lahaa ciidan nabadgelyo oo ka shaqeeya xasilinta iyo hagaajinta arrimaha amniga ee qaranka somalilan. waxaana ciidankaasi nabadgelyadu markii dambe ay isu bedeleen ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan oo marba marka ka dambaysa kasii horumarayay islamarkaana la jaan qaadayay wakhtiyadii qaranka jamhuuriyadda somalilan uu soo maray. jenaraal maxamed xasan cabdulaahi jirif oo arrintaasi ka sheekaynaya ayaa yidhi sidan: ciidanka nabadgelyada iyo booliisku waa sida waxa weeye ciisa waa aadama isiyo aadam bay isku yihiin. ciidanka booliisku wuxuu ka yimid ciidanka nabadgelyada oo muddo badan ilaa 1990 ilaa muddo badan shaqaynayay oo wadanka nabadgelyadiisa wax weyn ka qabtay. ciidanka oo ay la shaqaynayeen rag badan dad badan oo cuqaal leh oo salaadiin leh oo waxgarad leh oo tujaar leh ay la shaqaynayeen iskula tashaday somalilan ciidanka inay samaystaan nabadgelyadana ay sugaan kadibna ay dowlad samaystaan. arrinkaasi waxaa ka shaqeeyey clan eldriska nimanka la idhaahdo u taliya qabaa'ilka u taliya salaadiin hadday yihiin hadday cuqaal yihiin hadday waxgarad yihiin. marka nimankaasna aad baan u hambaliyanayaa. waxaa ka mid a maxamed faarax ilaah u naxariisto sultaankii arab. waxaa ka mid a sultaan maxamed cabdi qaadir. waxaa ka mid a sultaan cabdi baa ka mid a aadan baradhaa ka mid a waxaa ka mid a maxamuud dowlad hablaa ka mid a rag badan oo caynkaasoo runtii aada ila shaqeeyey oo sidaan nabadgelyada wadanka kulba gobol sidaan ku sugnay ay noqotayna waagta halkaa taala maanta taada waxay ka qortay ay naga qortay adduunku uu noo ogolaaday inuu wadan labada. markii maraykanku yimi koonfurta waxaa lagu tashaday jimcada kulama ka dhexaysa in nimankaa xoog laga dhigo. inanka nin baa laynoo soo diray zone director baa la yidhahdaa nin maraykan ahaa wuu inoo yimi wuu ina eegay. waxaa inoo yimi james stone la yidhahdo wuu ina eegay wuu inaga tegey. sahnuun baa inoo yimi algerian ahaa oo jimcada kulama ka dhexaysa. waxay noo timi islaantii ingiriiska ahayd linda jones aynkaas ahayd ay noo yimaadeen. intuba si positive ayaa ay arrimihiina u bixiyeen. haddii aan kusoo dhawaado ciidanka nabadgelyadu sidaasaa waxaan ku aasaasayaa anigoo dadka shirya la kaashanaya
in 300 ugu horreeyey Hargeysa ka asaasmay ciidanka tiriisa inoo ogolaadeen ilaa 3 buu ahaa markaa kadibna gobolada laga sameeyo markaa caasimadda nabadgelyada la sugo kadibna gobolada laga sameeyo sidoo ahaydeen waxay noo yimi halkan 3 nin oo UNICEF ka socda nin booliis ku qaabilsanaa nina maxkamadu qaabilsanaa nina wuxuu qaabilsanaa jeelasha 3 nin waxaa la soo furay oo soo furay ninka la Admiral Jonathan Howe soo furay inay booliis noo sameeyaan booliiskan Somaliland sidaas ku asaasmaya sidoo booliisku saa u sameysay muddo gaaban oo tababarkay ka baxeen oo maanta ugu horreysay haddaan xasuusiyo hoteelkii shaqaalaha ninka muwaadinka Maxamed la yiraahdo ka quraanay waxaanu tagnay khayryada halkaa xaaji faarax ay ku dhaariyay aniga waa dhaariyay arrinkaa raggii ka mid ahaa wax la leeyahay kama hadlan laakiin way ka hadli doonaa ma khadar baa ka mid ah waxa ka mid ah khadar baa ka mid ah faysal xiis baa ka mid ah waxa ka mid ah xaaji faarax baa ka mid ah maxamed xaaji baa ka mid ah waxa ka mid ah maxamed jaamac dolaal baa ka mid ah axmed ali geyd oo aad iyo aad ninkaas isagoo aqoon-yahana gaari buu lahaa gaarigaasaa waddanka ma yaala gaarigaasoo lagu shaqeynay wuxuu noo qaabilsanaa xiriirka hay-adaha yuu noo qaabilsanaa aad iyo aad baan u ammaanayaa axmed ali geyd hawl weyn buu noo qabtay waxaa kaloo isaguna nala joogay nin magaciisaan lugsanahay oo hayay markii waddanka la qarxiyey hayay securityka UNDP haystay ninkaana waan taxsiinaynayaa isla nin wanaagsan dargadu ahaa aduu rag badan baa nagala shaqeynaya arrinkaas laakiin waxaan ku celcelinayaa booliisku ciidanka nabadgelyadu buu ka yimid ciidan gooni loo sameeyey ma jirin ciidan aniga markaa cid igu timi oo anigu mas-uul ka ahaa mooyaane cid kaloo igu aasaaskii taliyanimadii waxaan ciddii doontaa taliso laakiin aasaaskii ciidanka booliiska ciidanka nabadgelyadu ka yimid ciidanka nabadgelyada director bankaa saasaa 300 ee ugu horreeyey ay ku soo baxeen waxa markaa yimid haddii la yidhaahdo waxaa lasoo doortay inaa ilaah naxariiso maxamed ibraahim maxamed gaal iyo cabdiraxmaan cali baa lasoo doortay halkanay yimaadeen booliiskaasu gebil baana ku hortagnay halkanay noogu yimaadeen booliiska halkaasay ka bilaabeen waxaa ka mid a raggii booliiska halkaa kasii bilaabay madaxweynaha maanta muuse biixi cabdi baa ka mid a oo maanta madaxweynaha markaa arrimaha gudaha ayuu ahaa halkaasaa madaxweyne ku-xigeenka iyo muuse iyo intoo dhan isku xilsaaray saasaa gobolada iyo wixii dhan loo gaarsiinayay ciidankii loo gaarsiinayay maalinta ay yimaadeen waa xasuusa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku maalinta halkiisa soo gaadheen aad iyo aad ajiibaa loo soo dhawey geedaha la fursanaa guryaha la fursanaa maantaana Admiral Howe ayaa yimi airportka ka soo qaaday halkii baan ka kaxeeyey halkii baan dhex mariyey madaxweynaha ilaa naxariistaan siiyey halkii baan ugu geeyey halkii baan isku salaameen halkii bay ku kaftameen habeenkii fiidnimadiina madaxweynuhu guri kiraagu kusoo degay madaxtooyada kugu soo degay madaxweynaha iyo muuse biixi cabdi oo wada fadhiya ayaa Admiral u geeyey Admiral u geeyey halkaa u geeyey halkii bay ku sheekaysteen Admiral Howe ballan qaaday inuu rehabilitation reconstruction Somaliland inuu ka caawiyo inuu ku faraxsan yahay sida qaabka loogu soo doortay ee dimuqraadiga adduunyada aan weli ka dhicin oo aad iyo aad loo ammaanay uu leeyahay idinku dad u baahan ciidamo matiidine idinkaaba isku fallo ciidamadiina waa in dadka adduunyada loo qaado iyadoo qurux badan markaasay ku kaftameen wixii baan kula dhisayaa iyo sidaa waxa ay soo abaabuleen oo hubka dhigis lagu sameeyey 6,000 oo muwaadin oo islamti u badan oo dhalinyaraha yaa hubka laga dhigay Mandheeraan geynay ali cabdiraxmaan cali baa ciidanka ka xidhnay Mandheeraan geynay halkaas lagu tababaray halkaas ayaa ciidankaasuna hubka dhigis ku sameeyay marka 3,000 iyo 6,000 durtaba 10,000 yaa lagu sameeyay hubka dhigis lagu sameeyay waddankii markaa wuxuu noqday iska nabadigu noqday saasay iyo ummadeen soo martay halkaasay soo martay haddii
maxaa xageenu ka nimi iyo xageenu ku socon hadday noqoto waxaanu ka nimi dagaaliyo jab baynu ka nimi qaxooti baynu ka nimi waxaanu ku soconaa nabadgelyo waxaanu ka nimi waddan dictator haysto waxaanu ku soconaa waddan dimuqraatiga muwaadiniinta isaga somaliland waxaan leeyahay nabadana inoo ilaaliya wixii khilaafi yimaadana in lagu dhameeyo hadal lagu wada dhameeyo ayaa fiican mar labaad waxaan ku celinayaa inaan halkaan ka hambaleeyo ciidanka booliiska waxaan taliyaha booliiska saraakiisha asagaa tuguridii xuskii waa durta waa rabaa qarni ayay ciidanka booliiska asaasiya nabad gudub way noo sugantay haddii la helaa waxaan ummadda reer somaliland ka codsanaya in nabadgelyada xajistaan ay aanay wax yar ka soo qaadin waayo meel fog baynu ka keenay shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile si aad uga mid noqoto guulaystayaasha abaalmarinta raac tallaabooyinkan ku shubo $1 ku hadal ama internet data macmiilku waa inuu khadka ku jira ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9 cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga idahab ugu dambaynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guusha aad u dhawaato wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel